xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Mudane Axmed Cali Daahir ayaa ka hadlay kiisasku soo muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay gobollada dalka Soomaaliya. Mudane Axmed Cali Daahir oo ka hadlay munaasabad haweenka u gaar ahayd waxa uu sheegay inuu jiro nin 40 jir ah oo loo haysto kufsi gabadh yar oo 5 jir ah. Xeer ilaaliyuhu waxa uu sheegay in gobollada Soomaaliya ay ka jirto dhibaatooyin la yaab leh gaar ahaan arrimaha kufsiga oo muddooyinkii u dambeeyay hadalhayntoodu taagneyd. wax ka qabasho la'aanta garsoorka ee arrintan ayaa ka hadlay xeer ilaaliyuhu waxaana uu sheegay in bahda garsoorka ka awood bateen sidoo hadalka u dhigay odayaal dhaqameed iyo xildhibaano uu sheegay inay doonayaan sidii hoos loogu dhigi lahaa kiisaska kufsiga isagoo intaasi ku daray in labada dhinac garsoorka la hor yimaadaan heshiis isla markaana dalbadana qofka kufsiga geysta loo sii daayo. dhacdooyinkan ilaa hadda hadalhayntoodu taagan tahay waxaa ka mid ah falkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay Caasha Ilyas kadib markii la faraxumeeyay Cabdirasaaq Cismaan Aadan Cabdirasaaq Daacad codka Bariga Afrika.